dhawaan waxaan ka sheekeynay dalkan gebi ahaanba ay South Africa dhinacyada ka xigto bal ka waran midkan dirqiga kaga badbaaday in uu gebi ahaanba hareereysmo waa dal uu boqor yeeshay isla markaana ka mid ah hogaamiyaasha ugu yaabka badan qaaradda Eswatini waa dal yar oo ku yaala koonfurta qaaradda Afrika dhul ahaan wuxuu dhexda kaga jiraa laba dal oo waaweyn koonfur Afrika iyo Mozambique waxaana saddex jiho ka xiga dalka koonfur Afrika oo xuduud dheer u la wadaago inkastoo uu yahay dal aan bad lahayn haddana waxa uu ku dhow yahay xeebaha badweynta Hindiya ee Mozambique taasoo siinaysa marin istiraatiiji ah waa dalka toddobaad ee ugu dhulka yar qaaradda waxaana ka weyn Djibouti laakiin juqraafi ahaan waa dal leh kala duwanaansho galbeedka iyo waqooyiga dalkan waxay qayb ka yihiin buuraleyda silsiladda ah ee Drakensberg waana halka ugu qabow dhulka dalkan koonfurta iyo bariga waxaa laga helaa dhul hoose oo kulul oo la yiraahdo Lowveld kaas oo caan ku ah dhul beereedka sokorta iyo dalagyada kale ee dhaqaalaha waddankan lafdhabarta u ah sida uu dhulka dalkan u kooban yahay ayayna magaalooyinkiisu u kooban yihiin wuxuuna leeyahay laba caasimadood oo kala shaqo ah caasimadda koowaad waa Mbabane oo ah xarunta maamulka iyo siyaasadda dalka waxaana magaaladan laga helaa xafiisyada wasaaradaha bankiyada shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha dawliga ah ee fulinta waa magaalo si buuxda u qaadatay magaca caasimad siyaasadeed waana halka inta badan laga soo saaro go'aanada dawladda magaaladan waxaa lagu yaqaanaa cimiladeeda qabow muuqaalkeeda buuraleyda iyo dhismayaasha casriga caasimadda labaad ee dalka waa Lumbamba oo loo arko inay tahay xarunta dhaqanka iyo sharciga waxaa laga helaa xarunta baarlamaanka dalka iyo qasriga boqortooyada waxaana lagu qabtaa xafladaha dhaqameed ee waaweyn Lumbamba waa magaalo astaan u ah dhaqanka iyo qarannimada waana meesha ay iskula falgalaan boqortooyada iyo baarlamaanka aan awoodda lahayn ee dalkan waxaa jirta magaalo kale oo muhiim ah oo lagu magacaabo Manzini waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka waxaana iyadana loo arkaa xarunta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Eswatini boqorka haatan ee dalkan waa Mswatiga saddexaad waana mid leh awood siyaasadeed oo aad u ballaaran waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay madaxda ugu awoodda badan dunida marka laga hadlayo awoodda uu ku leeyahay dalkiisa waa madaxa ugu sareeya dawladda taliyaha guud ee ciidamada iyo sidoo kale hogaamiyaha dhaqanka waxaana la dhihi karaa waxaa gacantiisa si buuxda ugu jira oo hoos tagaan saddexda awood ee ugu weyn dawladnimada waa sharci dejinta fulinta iyo garsoorka boqortooyada dalkan waxaa si weyn saameyn ugu leh dhaqanka waxaana boqorka dalkan loo yaqaanaa Ingwenyama oo macna ahaan ah libaax halka hooyadiis loo yaqaano Indlovukazi oo iyadana loola jeedo maroodiga weyn ee dhadiga asiga iyo hooyadiis waa astaan dhaqan oo lama taabtaan ah waxayna hooyadiis ka mid ahayd 70kii xaas ee uu aabihiis qabay 25 Abriil 1986 ayuu noqday boqorka rasmiga ah ee dalka kadibna wuxuu dib u soo celiyay baarlamaanka uu aabihiis kala diray boqorka dalkan wuxuu sanadkii 2018 bedelay magaca dalkan ee ahaa Swaziland asigoo ku bedelay magaca maanta uu sito ee ah Eswatini wuxuuna go'aankan ku dhawaaqay asigoo u dabaaldegaya in uu 50 sano jir noqday sababta uu magaca dalka u bedelayna wuxuu ku sheegay in magaca Swaziland uu bixiyay Ingiriiska isla markaana uu aad u shabaho magaca dalka Switzerland magaca uu dalkan u bixiyay ee Eswatini waa mid ka yimid afka dadka dalkan ee Swazi macnihiisuna waa dalka Swaziga waana magaca dhulkan loo yaqaanay ka hor gumaysiga boqorka Eswatini Mswatiga saddexaad waa mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu la yaabka badan Afrika marka la eego noloshiisa gaarka ah awoodihiisa siyaasadeed iyo dhaqamadiisa waxa uu leeyahay 12 xaas inkastoo xitaa wararka qaar ay sheegayaan inuu guursaday ilaa 15 jeer waxa uu leeyahay caruur ka badan 30 dhaqanka Eswatinina marka la eego boqorku wuxuu dooran karaa xaas cusub inta lagu guda jiro xafladda caanka ah ee Umhlanga xafladdaas oo ay dumar badan oo dhalinyaro ah oo aan wali guursan isugu yimaadaan si ay u soo bandhigaan qobka ciyaarka iyo dhaqanka dadka Swaziga inkastoo Eswatini ay tahay mid ka mid ah wadamada saboolka ee Afrika haddana boqorka dalkan waa mid ku caan ah tamashlaynta iyo nolosha raaxada waxa uu leeyahay guryo badan gaadiid qaali ah iyo diyaarado u gaar ah dad badan oo dalkan u dhashay ayayna ka careysiisaa habnololeedka boqorka maadaama dadkiisu in badan oo kamid ah ay la dhibaatoonayaan saboolnimo iyo HIV/AIDS wuxuu mar ku dhawaaqay xeer lagu magacaabo Umshawasho kaas oo mamnuucaya inay galmo sameeyaan gabdhaha ka yar da'da 18 sano si loo yareeyo faafidda HIV/AIDS laakiin go'aankaasi kadib boqorka wuxuu guursaday gabar 17 jir ah
wuxuuna arrinkan boqorku kala kulmay dhaleecin xooggan. sidoo kale dadka dalkan waxay gadood ka muujiyaan lacagaha ay xaasaskiisu adeegsadaan kuwaasoo dibadda u dalxiisa kana soo tukaamista. 2021 mudaharaadyo waaweyn ayaa ka dhacay dalkan oo ay dadku ku dalbanayeen xorriyad siyaasadeed, waxaana markaasi jireen warar sheegayay inuu boqorku u baxsaday mid ka mid ah dalalka dariska, inkastoo ay dawladdu beenisay arrinkaas. sanadkii la soo dhaafay wuxuu guursaday gabar 21 jir ah oo uu dhalay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma, waxayna boqortooyadu guurkan ciwaan uga dhigtay jacaylku indha malahan iyo da' gooniya. dalka xaddiga ugu sareeya ee HIV/AIDS haysta waa dalkan, ilaa 27% oo dadka dalkan ah ayaana la nool HIV/AIDS, waxaana intaasi sii dheer in ilaa 60% oo dadka dalkan ah ay ku nool yihiin xariiqda faqriga. wuxuuna dhaqaalaha dalkan ku tiirsan yahay dhanka macdan qodidda iyo beeraha, gaar ahaan sokorta oo ah wax soo saarka ugu weyn marka la eego wax dhoofinta dalkan. wuxuuna leeyahay warshado yaryar oo dharka iyo sokorta soo saara, waxaana lacagtiisa loo yaqaanaa lilangeni. tirada dadweynaha dalkan waa 1.2 milyan, intooda badanna waa dad ka soo jeeda qowmiyadda Iswaaziga oo ah dadka lafdhabarta u ah dalkan. dalkan wuxuu leeyahay 2 luuqad oo rasmi ah, waana English oo ay gumeystihii ka dhaxleen iyo luuqadda qaranka ee Siswati ama Iswazi oo ah luuqad Bantu ah si weyn xiriir ula leh luuqadda Zuluga. in ka badan 80% oo dadka dalkan u dhashay ayaa lagu sheegaa inay Kirishtaan yihiin, waxaana dalkan weli ku xoogan dhaqamada iyo caqiidooyinka soo jireenka ah ee awoowayaashood ka dhaxleen. waxaana sidoo kale dalkan si weyn loogu yaqaan caan ku yahay 2 xafladood oo lagu kala magacaabo Umhlanga iyo Inkwala. Umhlanga waa xaflad sanadle ah oo ay dumarka da'da yar ku soo bandhigaan qoobka ciyaar, halka xafladda Inkwala ay tahay xafladda ugu weyn ee dhaqanka Eswatini, waxaana loo arkaa inay tahay xafladda boqortooyada, waxaana badanaa la qabtaa dhammaadka sanadka. What's up?